soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan. Asad Saeed. Oh, okay. Thank you so much. Okay, okay. Okay, tan waa la baloogayaa. Okay. aad baan idin salaamaya dhammaan asxaabta qaaliga ah. soo dhawaada. iska ogtihiin waa winter, waqtigu waa iska ciriiri. habaryartay baan u jeedaa, wiilkaan tagu ahaa ciid nicmo ducaale. kulligii sheergareeya barnaamijka ciid abti waa ku salaamay. sheergareeya barnaamijka insha allah. aad baan dhammaantii idin salaamayaa. muxiba ka soco, muxibe axmed ka soco, ha ku mashquul intaas. okay, inaad sheegto aad bay u fiican tahay. kaas baloogaad qaadanaysa inaad sheegto aad bay u fiican tahay. okay, habaryarta waa idin salaamay dhammaantiin. ayaan ku weyn haddaad edab darro keentid waa baloog baad tahay. waan kuu sheegaya, anigu haddaan kusii ogeysiinaya. baloog baad tahay haddaad wax edab darra aad la timaatid. digniinna waad qabtaa. sacdiye xuseen may adeer waa jooga insha allah. okay, wakti badan ma jiro. iska daalanahay, howlo badanna waa iskaga jiray, marka insha allah waa idin bilaabayaa. xoogaa raalliga ahaado horta, waa idinka soo daahay. waxaana idinka soo daahayna iska dabaaldeg baan ku jiray. arrintaasna waxaan ka hadlayaa hadduu ilaahay yidhaahdo berri ama saa dambe oon waraaqaha idiin soo dhigi doonaa. insha allah waxaa dhacday muddo hadda laga joogo 9 bilood. waxaan maanta idinka soo daahay baan idiin sheegayaa. waxay ahayd barnaamijkan haane inaan ka hadlo 2 duhurnimo, laakiin waa idinka soo daahay because dabaaldeg baan iskaga jiray. waxaa dhacday muddo 9 bilood laga joogo ayaa nin aanu naadeernahay iyo nin kale oo isaguna maxamuud saleemaan ciise maxamuud ayaa waxay damceen inay dhacaan gabar miskiin oo cumar maxamuuda oo weliba kaanu naadeerka nahay uu qabay. iyo damceen inay dhacaan. waan ka yeeli waayey, waa ka difaacay. waa carareen 2 ninoo waaweyn oo haddaa aragtaan aad yaabasaan. maxkamad bay tageen, suudad bay qaateen, waraaqay buuxiyeen, waaba iska oohiyeen. 2 wiil ka hor baan maxkamadda iskugu nimi iyagoo lawyer wata iyo anoo wato. anigu waa hubay in waxba aanay ka soconayn. oo sidii ilmo yar bay labadoodiiba
وانا لا ديلاياي وانا لا دعياي كان لا ديلاياي جانجس بنو سو ديري وان ما نولينay naftayadi ma noolay halis baan ku jirnay wada maxkamadda dhexdeeda saan u qoslay maalintaas laba nin oo 60 jir ah oo inta laba suul ku soo gashteen maxkamadda dhexdeedii ka ooyay waxa igu noqotay yani waxa aad la yaabay intaas oo waxay u sameeyeen in ay yani waraaqaha la siiyo oo la yiraahdo harassment buu ku sameeyay wada maanta afka laga soo laaday bash almost 10,000 mise $15,000 lacag habay ku bixiyeen qareeno fiidiyoyo la tarjumay qoraalo la soo qaaday ka waliba ciise maxamuud ilmuu kufsaday magshaatiisii baan soo qaaday record buu haystaa waan soo geliyey facebookaygaan soo geliyey su'aalihii markii la weydiinay maba dafirinba marka arrintaas barito ama saa dambe ayaa idinka dhici doonaa afka laga soo laaday one thing laba doqon bay ahaayeen waysan ogeyn inaan cabdixakiin cusmaan nuur xerta sheekh ahay hani biin laygagama dheereeyo taas maskaxda gasho looyarka ugu qaalisan haddaad soo kaxaysatay don't think inaad iga weyn garaysan weliga taas waa taa okay maanta marka asaasan waa ugu baashaalaya bari ma ahan saa dameen karbaashaya labadooda intaan u soo galo tan waraaqii waxay qoreen oo dhan soo qaado aad baan horta idin salaamaya shacabka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنت مقعي موقعي بتقانا الشعب الصومالي مالك السجوكتان ولكن عبد الحكيم عثمان نور وكم مقعدير حتى شيخ صومالي إسماعيل عثمان حسن دعالي بلوك آيات هاي ساعة ذاك بعد دقيقة هذا الدرجة جوجين ويدي waxaa dhacday barnaamijkayga maanta inta magacay muuqay taqaan waa idin salaamay salaamta salaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkii cabdixakiin cusmaan oo ku magac sheekh Soomaali AK xarfa sheekha Minneapolis Minnesota xarfa sheekh runta kama xishooda barnaamijkaygan maanta muxuu ku saabsan yahay barnaamijkaygan maanta waxa uu ku saabsan yahay Hana Abukar oo aad wada garanaysay oo wali wada dhibaatadii ay ku haysay faamiliyada Soomaaliyeed ee Yurub degan Soomaaliyeed هانو waxa ay baraha bulshada ka waday waad wada ogeeyeen wax idin ka qarsoona haba yaraatee ma jirto hadayna dhaxal iska tuuray qabiil iyo shakhsi jeclaysi maanta halkan aynu dhigno waake ninka Soomaaliyeed aabaha Soomaaliyeed ee yeeli lahaa caruurtiisa oo u kaxaystay in dhaqan celin loo sameeyo quraanka iyo luqadda la soo baa inay habar xun oo faasiqadi ay ka daba tagto ashqashada ka yeelila ka ahaana maanta ku sibood gareynaya waxyaalaha ay sameynayso ku sibood gareynaya Soomaaliyeedo ama gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeedo dhagihiina si fiican u furo ma ka suuroodaan inaad ilmihiina faraxmaysa waxyaalahaas baraha bulshada haani keento oo aad dhagaysateen oo lacag idin kaga qaadato still wali wahaani waxay ku sii jirtaa dhibaatadii ay ku haysay faamiliyada Soomaaliyeed tusaale okay kanaan qabanaya sugada tusaale Hana kiiskii muqdisho kaga socday ninkii xawaadle ee wadanka Canada caruurtiisa laalaa ee muqdisho kaga socday xeer ilaaliye ku xigeenkii ayay waxay siisay $2,000 saddex bilood ayaa waxa lagu haystay magaalada muqdisho $2,000 bay siisay magaalada muqdisho markay joogtay fiiriyaya Soomaaliya bal maanta waxyaalaha Soomaaliya ka dhacay baan idin ka warramaya markay magaalada muqdisho joogtay waxa ay tiri ee dacwadu ku socotay maan arkin maan urin ma aqaan family-gaas haba yaraatee ma aqaano ayay tiri aabihii Soomaaliyeed ee heludiinka ahaa ee caasimadiisii joogay xeer ilaaliye ku xigeenkii maxkamadda oo ay la sawiran tahay oon hayo isagoo miiska la fadhiya ayaa $2,000 siisay waxa la yiri bacdama ay tiri ma aqaano ha baxdo baasaboorkeedii baa la siiyay way soo baxday imaaraadka markay saa uga soo degtay okay
baasaboorkeedii markii fartii laga saaray ee ay imaaraadkii saa uga degtay waxa ay soo bandhigtay qoyskii ay lahayd ma aqaano oo leh wayna caawisay waa nabad qabnaa meel seefaan joognaa hadda maxkamadiina waxay ka tiri ma aqaano markay wadankii Soomaaliya ka baxday oo ay imaaraadkii tagtayna waxay tiri waan aqaanaa oo ay soo bandhigtay taasi waxay dhirbaaxo weyn ku tahay dawladda Soomaaliyeed iyo dadkii sii daayay ayay dhirbaaxo weyn ku tahay okay waxa ay ku soo noqotay Yurub haani ma jirto hay'ad dawliya ama maxalli oo u shaqeyso oo dooratay oo arrimaha u xil saartay ma jirto waxyaalaha ay gacanta kula jirto oo dhanna kullu waa wada sharci darro lacagta ururna saa sharci darro dawladda aan u shaqeynay leedahay waa u shaqeeyaa waa sharci darro laakiin waxa weeye dhibaatadu waxay ka taagan tahay Soomaalida Yurub joogay ayaa ah dad aad iyo aad u jilicsan oo aan systemka wadamaday ku nool yihiin aan waxba ka fahansan dhaqaale waa haystaan laakiin dad fahansan ma aha waad aragteen weli waxay ku sii inta adeegaysa oo leedahay maxaa la iska qaadaya aabe ayaa ilmihiisii kaxaynaya waxa uu geenayaa wadankii waxay rabaan inay diinta iyo dhaqanka ay u soo bartaan halo halo ha ma ku soo qabtaa waan ku soo qaban inaan ku soo qabtaan jeclahay please okay okay ii soo dir codka okay aabba Soomaaliyeed oo ilmihiisii kaxaystay oo u kaxeeyay dhaqan celis diinta iyo luuqadda inay soo bartaan totally qiil kuma helayso looguma sacabtumi karo laguma taageeri karo hana abukar inay tiraahdo waan soo celinaya ma lagu taageeri karo qofka ku taageereen waa khaldaya Soomaaliya dad islaameynu nahay dad dhaqan leena waynu nahay dadku inay runta iska indhatiraan ma fiicna gabadha la yiraahdo Aamina Muuse Weheliye islaanta la yiraahdo Aamina Muuse Weheliye ee BBC ka shaqeyn jirtay way ila soo xiriirna maasijadeedii baan hayaa marka ila soo xiriirnay arrinta haana yaan ka wada hadal waxaan ku yiraahdaa Aaminay qof suxufiyada oo Soomaali waan hayaa maasijadeedii kullu waan idin soo wada sawiraya waxaan ku yiraahdaa qof Soomaaliyeed oo suxufiyada dhahay oo bulshada Soomaaliyeed laga yaqaan ma aaminsan tahay aabba Soomaaliyeed inuu gabadhiisa isagoo farxumeynaya inta hooyadeed soo gashay ay albaabka u sii xidhay waxay tiri walaa hawla walaa quwwata illa billah aliyyil azim ma aaminsan tahay ku yiraahdaa aabba Soomaaliyeed inuu 7 gabdhood oo dhalay oo fuulay oo uureeyay waxay tiri subhanallah waxyaalaha ay haana samaysan baan ku yiri Aamino see u aragtaa waa ku soo wada diray ii soo wada dirbaytay waxa ku xigtay intay soo gashay inay tiraahdo Cabdixakiin baa $10,000 haana weydiistay wallahi oo billahi oo tallahi 10,000 haani taan haysto inay 20 sano samayn karo lacag aan u baahanahay haba yaraatay ma jirto number 1 number 2 iyada Aamina lafteeda ayaa haana ka qaadatay lacag oo ay laaluushtay oo ay maaluul baxayaysiisa sababta uga qaadatay waxay tahay inay ku difaacdo dulmiga ay ku hayso bulshada Soomaaliyeed wariya aabaha Soomaaliyeed ma yeeli lahayd dadka Aamina xitaa difaacan maanta la hadlaya direct ula hadlaya ma yeeli lahayd in ilmahaaga oo ka haysata ama ilmaha walaalka oo wadankii la geeyay habar nijaasad ay ka daba tagto oo ay inta baraha bulshada soo fariisato cirdigii iyo sharaftii qoyskii xitaa ay ku ciyaarto haana abukar Aamina Muuse Weheliye waxay igula dagaalantay haana ay ku taageerisay laaluush ay siisay way dad badan baa ila soo xidhiiray oo ay beesha ay ka soo jeetay abgaala oo igu leh way waalan tahay ka khafiif waa qof xanuunsan way isku dhex yaacday hadday waalan tahay xarumaha cawaalidaha la geeyo
hadday waalan tahay xarumaha waalida ha la geeyo. runtaan idiin sheegayaa inta aan noolahay Haane Abukaray Daahir Calasow waxa uu kugu sheekeeyey dad baan YouTube ka xidha iyo Facebook haddaan ka xidhin baan ku dhahay oo ku shaqaysatay ay baan hayga ka celi Daahir Calasow he is nothing u samayn kara ma jirto waana damiir laawa Daahir Calasow haddaan leeyahay hadduu damiir leeyahay ma aaminsan yahay wariga inuu gabadhiisa wasi lahaa Daahir Calasow waxa uu ku taageeray Haano laaluush haddaad siisay isaga u taala laakiin igama kaa reebi karo. Facebook iyo YouTube Mareykan baa laga leeyahay ballanna waxaan kugu qaadayaa Haane Abukaray lacagta ugu badan ee qof bini'aadmiga lagu bixiyo intaan jeebka ay ka bixiyo inaan kaa xidho YouTube. haddii Daahir Calasow kugu sheekeeyey anaa dadkaa daafacaya Aamina Muuse intaas shilimaad siisay anaa dadkaa daafacaya ee faamiliyada Soomaaliyeed kaalay dulmi hayga kaa celiyaan aniga nabti u samayn kara Daahir Calasow hadduu wax kuu sheego laad ku garaacina beenba kuu sheego isagana waxaan leeyahay wariyaa damiir laawa tahay dib iskugu noqo doofaar baa tahay haddaan ku leeyahay doofaar baa tahay damiir laawa dib iskugu noqo. ma kaa suuroodaa wariyaa gabadhaada yar inaad wasti Daahir Calasow ma kaa suuroodaa oo wasay ay hooyada ku soo gashay albaabka ku soo xidho naagta aad taageeraysaa waxaasay baraha bulshada kaga hadashay naagta aad taageeraysaa waxaasay baraha bulshada kaga dahabo lagama baqayo waa la karbaashaya dayuusna weeyaan dayuus aan damiir lahayn weeyaan Daahir Calasow anaa hadda sheegaya $2,000 oo ay Aamina Muuse weheliye iyo kala qaateen Daahir Calasow oo ay Haane Abukar siisay wallaahi billaahi tallaahi baan lagu dulmini karin dad Soomaaliyeed. Daahir Calasow waxa uu ku jirana waa dulmi nin damiirka dhintay oo islaamnimada iyo dhaqanka iyo diinta midna wax ka aqoon way qaydna baan sheegaya. sababtoo ah carha ka soo jawaabo Daahir Calasow nin raga hadduu yahay carha keeno caddaynta Haane gabadhii ay tiri aabaheedaa wasay ee la dhan joogtay ee guriga hooyadeed u soo xidhay carha ka soo jawaabo carha ka soo jawaabo. Aamina Muuse weheliye lacag bay siisay Haane Abukar si ay uga jeediso dadka laaluush bayna qaadato wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaaliyeed ilaahay ni abuurayba idinku dhaarshay ma idinla quman tahay waxyaalaha ay baraha bulshada ka samaynayso Haane Abukar ma idinla quman tahay waxyaalaha ay baraha bulshada ka samaynayso Haane Abukar ma idinla quman tahay aabba Soomaaliyeed oo ilmihiisii kaxaysay oo wadankii geediintii iyo dhaqankii u bar in habar nijaasada oo homeless oo guri lahayn ay ka daba tagto nobody Haane Abukar iga kaclin kara ma jiro. hadduu Daahir Calasow kugu sheekeeyey libax sanka taabto he is nothing wax uu yahay ma jirto qol madow oo holan uu ku xidhan yahay banaanka xitaa uma soo bixi karo. I wish maanta Daahir Calasow wallaahi billaahi tallaahi maanta I wish inuu America joogi lahaa because dadka Yurub dad nool ma aha waa dad dhintay waa dad baktiyey waa dad uray oo baktiyey dadka Yurub degan Soomaalida Yurub degan waa dad uray oo baktiyey sababta oo ah shakhsigaas oo kale ayaa intuu ilkal af foolxun soo dhigo soo gala mee ummadii islaamka ahayd maalin waxa rabtan ku sameynaya qol madow buu ku xidhan yahay holan qol madow ayuu ku xidhan yahay suuqa xitaa uma soo bixi karo. America hadduu joogi lahaa mar hore afka laga garaaci lahaa mar hore afka laga tumi lahaa wax uu yahay ma jirto. hadduu ku yidhi ina libaax sanka taabtaan ahay wax uu yahay ma jirto. he is nothing wax uu yahay ma jirto. Facebookiisa lacag buu hadda ka sameeyaa dhaqaalaa ka soo gala weerar buu bilaabaya waa lagu bilaabaya waa laga daba shaqaynaya oo wallaahi oo bilow tallaah waxaan iskula hadhanaa ani isagu ma jirto dameer aan damiir lahayn
weeyaan daahir cali soo hadduu damiir leeyahay uu meher xalaal ku dhashay uu islaam yahay haana abukar kumuusan taageereen Soomaaliya haddaan khaldanahay qabto kumuusan taageereen aaba Soomaaliyeed ilmihiis isagoo fuulay daahir ma u kacsan kartaa ilmahaaga ma u kacsan kartaa wareega gabadhaada daahir cali soo dayuusada aad ku taageertay ilma gabadha aabaheed fuulay waa tashriimaad ku siisay adiga ka suurowda inaad gabadhaada fuushid dasmin jacl waxaad samayn kartid waa wixii aad samayn lahayd baad ku approve garaysa dameer aan damiir lahayn baa tahay dadkaan wax ka dhigay daahir cali soo haddaad Mareykan joogda afka lagaaga kaaji lahaa oo wallaahi Soomaaliya waxaan rabaa isuga Hana Abukar waxay dhibaato u geysatay family Soomaaliyeed oo degan wadanka Canada oo kale gabar looyarada oo degan magaaladaas ayaan idin shidaya ila dhageysta ku xiri doonaa gabadha marqaatiga ah ee ku nool Canada ku xiri doonaa gabadha marqaatiga ah ee ku nool inaad haddaan daaraya okay waxaan soo qabanayaa Naciima Ducaale نعم كسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتا دتك كلا كهل استنى أقوال ما بقول لكن المدة آخر بالوضع وحكي لي أكال بكرام نقطة قصة عن investigation كسمية فيديو ذي آخرية دبقة لي عد كروقات صفة عن ولي مقلع yes قفك أنا هدا عن كشكو ربي كرو وهنا أبو كردا من من كلا أقوال كلا ومليه مقدم بقلي لكن قفك فيديو ذي عن استرجريه dad badan oo dhibaataysayna ila soo xiriireen muddo 4 biloodna aan dad socday oo ma arkino de wixii aniga Ilaahay ugu og yahay oo aan ka sheegi karo Hana Abukar systemka ay Hana Abukar u shaqeyso horta waxaan sameynay baaritaan oo aan ku sameynay hadda ka hor inta gabar soo bandhigtay joogta Sweden ay gabadhan oo sharci leh oo 4 ciyaal haysa waliba ku jira cunug disable ama maaragtay cunug ilmo yar oo maaragtay أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أوكي هلو كسعة qofka aan hadda ka hadli karo maaragtay labadaas kale kama hadli karo qofku doonu taageeri karaa isaga jirtaa laakiin qofka hooyooyinka Soomaaliyeed iyo caruurta Soomaaliyeed
dhibaatada ku haayo waa gabadhan hana abuukar la yiraahdo hana abuukar waa yacni waxay ahayn ayay dadka isugu sheegtaa koo waxay dhihi social worker aan ahay background check ku sameynay social worker ma ahan Sweden oo dhan ka soo baarnay address leedahay xataa waa weynay sheeka gabar sharci leh oo 9 bilood wadanka deganeed oo sharci ku leh oo guri degan afar ciyaal haysata ayay soo bandhigtay gabadhana inta la'aan haysta oo waan u dawarsanayaa laakiin waxay runtii sameynaysaa waxay ahayd inay gabadhaas u bandhigto baaqna u dirto kuwa ilmaha qaata ma fahamtay because gabadhii ayay kamaradii ku qabatay waa gabar Swedish citizen oo yani sharci ku leh Sweden ku leh afar ciyaalna haysata macquul miyaa inaad tiraahdo gabar Sweden degan afar ilmood ku haysta guri weyn ay soo bandhigtay degan intay kamaradii ku qabatay sirinjeerkiina cuntadii laga dejiyey oo maaragtay dadkii la tusayo leeyahay cunto la'aan gabadha haysta runtii dadka waxay sameynaysaa ma fahmayaan baaq ayay diraysay gabadhaas ayay cajaladaas videoga hadhow ugu haysanaysaa hostage systemyo badan ay gabadhaas ku shaqaysaa horta walaa government walaa Swedish government walaa muxuu ahaa Ingiriiska meel ay ka shaqayso ma lahan gabar ayay dulsaar ku tahay dhibaato badanna way ku haysaa naciimo maghribkan iska soo ridayaa sii hadal yaa waa 5 minutes maya aan ku soo noqono maghribkaan soo tukono waa soo tukanaya okay waaye soo laabo okay asxaabta qaaliga raaliga ahaada salaada maghrib baa soo gashaan iska ridayaa hadduu ilaahay yiraahdo iigu jira meesha hayga bixina intiina ku jirta waa 7 minutes bay qaadanaysaa insha Allah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام وهي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله السلام عليكم السلام عليكم أصحاب قارئة ما شاء الله وإذن كسر النقضي Soomaaliye wixii khaladka waa inaynu iska qabanaa isna qof khalad waa arka qof kastoo Soomaaliyeed maanta aqligiisu saliim yahayo oo miirkiisa qabo waad arki kartaan Hana Abukar waxa ay ku jirto dhan inay dulmi iyo khalad tahay laakiin yoom min al-ayaam way ka daba imaanaysaa ummadda Soomaaliyeed mid kale aan rabo inaan ogeysiiyo waxaan rabaa qof alla iyo qofkii ay YouTube-keeda ku dulmidayo laguma rabo inaad like soo gashid ma lagu rabo in aad wajigaaga la arko just ila soo xidhiid waxaan arkay nin Yurub jooga oo hanjabaya oo laha waan ku dilayaa ila soo xidhiid dad badan oo waxaan u baahanahay aan magacooda iyo wuxuu dhinta aan la sheegaynin laakiin talaabo ayaa laga qaadaya Hana Abukar waxa ay ugu ballan gaalnimo waa taan ku dhintaa waxa ugu ballanaa in dhahay in talaabada ugu culus oo aan dhaqaale ku bixiyo aan ka qaado dameer cali soo baayimi daahir cali soo ibn al-halal ma aha sababtoo ah waxaan rabaa maanta Soomaaliya barnaamij gaar oo daahir cali soo ka diyaarinayo ayaan idin sheegaya waxa soo koobantay oo soo afjarantay dadkii Soomaaliyeed mas'uuliyiintii Soomaaliyeed ee uu beenta lacagta kaga qaadan jiray daahir cali soo waxa uu hadeer sameeyay program ah in islaan kasta oo Soomaaliyeed oo faasuqada oo dhaqan xumo la soo gashay YouTube oo aragteen oo views mise kulli isaga ka dambeeya kulligood wallahi oo sum wallahi baan ilaahiga abuuraan ku dhaartay islaan kasta oo fusuq ku jirta social media kulli oo YouTube ku jirta lacag buu ka qaataa ninkaas waa ibn al-Haran wallahi waa ibn Haran dameer cali soo weligaaba soo adeegsan naaga la sheegay inaad fiidiyoya ka haysid oo ku sacabtuma iyaga laftooda waan karbaashaya banaanka soo dhigaya kuwaad fiidiyoyada ka haysid hostelka ku haysid ku sacabtuma iyaga laftooda ila soco dameer baa tahay waxa la yiri gudin yahay garuunkeega kuga jira imaad goysay wallaahi oo billaahi oo tallaahi daahiro Soomaalida Yurub qolbaad ku xidhan tahay madow dameer bilaa damiira baa tahay ibn al-halal lamati zina ku dhalatay oo wallahi inaadan aabalahay habar gidirta aad sheeganaysa lamatihi habar gidir waqtigaas calaso iyo lamaba bixi jirin ibn zina ta hadaadan ibn zina ahayn habar faasuqada oo wasakhada oo gudaafada oo aabe adoo kala wariya aabe adigoo kala okay isugna la qabanaya aabe adiga oo kala intay soo fariisatay tiri gabadhiisiibu wasay war adiga haday ka suuroodo inaad ilmahaaga fuushid wayba ka suuroodo ibn nijaas bata sababtoo waxaad u aamintay ibn zina adiga ila dhageysta gabadhan aan idin daaraya looyarada ku xiri doonaa gabadha markhaatiga ah ee ku nool
nool Canada. waxaa ku dhacay gabadha faamil bay ahayd ninka isqabeen iyo iyada ayaa ku tashaday inay dhulkan caruurta dhegaystayaa faamiligan waa faamili Canada jooga gabadhan hadlaysa waa gabar looyarada oo wadanka Canada degan si fiican dhegin u furto way yar tahay ayaa ku tashaday inay dhulkan gaalada caruurta ka kaxaysan oo diinta soo barta ay soo baraan waxay galeen cagbad amba ayuuto qofba siduu yaqaano lacagtii markii ay ururiyeen iyo walaalku baxay inuu gurigna soo dhiso dhulkiina dee usoo sahan tago oo si uu reerka u ragi lahaa walaalkii ma soo noqon walaalkii iska guursaday nolol buu iska samaystay businessiyuu iska galay reerkii dib uguma soo noqon halkii bay kow dib uga bilowday markaa gabadha warwarku iyo dhibtu halkaasay ka raacday ha ka raacdee waxay markeega orahayd hooyo ehludiina diin ku xidhan masaajid ku xidhan laakiin walaashii dhibta ku timid waxay ahayd markii habeenkii seexan weday waxay ku qasabtay inay daawato meelahay soomaalidu soo gasho nasiibkeega wax waliba waa qadar waxay la kulantay walaashaasi gabadhaha la kulantay gabadhaasi markiiba dagaal iyo dhib kumay bilaabin waxaa la yidhi waaba jiirkii intuu dadka qaniino marka dambena afuufayay gabadhii waxay ku bilowday inay gabadhii soo dhaweysa ha soo dhaweysay si khalada u dhaweyso may odhan dadka la deganta u tag kumay odhan masaajida dad ku xidhnayd masaajidkii ku noqo kumay odhan haddii ay qaraabo ay wadanka kuu joogto qaraabadaa raadso kumay odhan waxay u dirtay dhakhtarro iyo cadaan iyo dad gaala ah gabadhi intaa markay u dirtay way samaysay laakiin walaashani waxay u haysatay gabadh dee wax ku dhaartaa wax fahmaysana waxaa dhacday walaashii marka intii oo dhan ay samaysay yaa waxay tiri markay dawada qaato dawadu malaha way iga quwadeeda malaha badnayd ma fahmayo marka qaato waxay tiri adduunyada ma joogin maalin baaba ka baxayaba dhulka maalinta dambe inay isniin ahayd iyo inay arbaca ahayd marmar aan kala garan waayi jiray waxaa dhacday waxay tiri waan joojiyey kininkii anigoo joojiyey laakiin weli dhibtii ku jiro waxaa xanuunkii korkayga ku jiro iyo walaashu ila soo hadashay habeenada ka mid ah waa ila sheekaysatay walaashii sidii ilaahay ugu ogaa baan ugu warramay inaan kininkiina joojiyo dhibii keenay aniguna saaka sidaan u kacay aan caruurtu ay iyagu is caawinayeen laakiin waxba anigu aanan u qabanon kor jiifo caruurtuna ay living roomka fadhiyaan halka fadhiga waxay tiri qiyaastii ilaa 7 bilood iyo wax la jira gabadhaasi wanaag iyo si fiican ila hadlaysay laakiin walaashay macaanay markaan dib u eegay waxyaalaha xitaa walaashu wanaaga u haysatay wanaag maaha because qofka wanaaga kuu haya sababto wuxuu kuu diraa meel khayrku ku jiro dad islaam kuu diraa qaraabadu kuu diraa masaajidadu kuu diraa qof buu yidhaahdaa u tag inta kuugu xigta laakiin iyada waxay u dirtay dhakhtarro oo markaa horeba walaashu waxay u haysatay ina wanaag loo wado laakiin anu wanaag uma arkayo waxaa dhacday gabadhi walaashii waxay ku tiri iyada oo qolka ku jirta maalin maalmaha ka mida iyay kool soo dirtay waxaa ku tiri walaashii baa u calaacashay ma maqlasaan miya ina maxamed baa waxay soo qortay waxa maqli mayno okay speaker kan aan ku xidhayaa okay speaker kan aan ku xidhayaa ina maxamed bisig ku xiri doonaa gabadha marqaatiga ah ee ku nool Canada waxaa ku dhacay gabadha faamil bay ahayd ninka isqabeen iyo iyada ayaa ku tashaday inay dhulkan caruurtoodu yaryar tahay ayaa ku tashaday inay dhulkan gaalada caruurta ka kaxaystaan oo diinta soo baraan waxay galeen cagbad amba ayuuto qofba siduu yaqaano lacagtii markii ay ururiyeen iyo walaalku baxay inuu gurigna soo dhiso dhulkiina dee usoo sahan tago oo si uu reerka u ragi lahaa walaalkii ma soo noqon walaalkii iska guursaday nolol buu iska samaystay businessiyuu iska galay reerkii dib uguma soo noqon halkii bay kow dib uga bilowday markaa gabadha warwarku iyo dhibtu halkaasay ka raacday ha ka raacdee waxay markeega orahayd hooyo ehludiina diin ku xidhan masaajid ku xidhan laakiin walaashii dhibta ku timid waxay ahayd markii habeenkii seexan weday waxay ku qasabtay inay daawato meelahay soomaalidu soo gasho nasiibkeega wax waliba waa qadar waxay la kulantay walaashaasi gabadha
gabadhaha la kulantay gabadhaasi markiiba dagaal iyo dhib kumay bilaabin waxaan idhi waaba jiirkii intuu dadka qaniino marka dambena afuufayay gabadhii waxay ku bilowday inay gabadhii soo dhaweysa ha soo dhaweysay si khalada u dhaweyso may odhan dadka la deganta u tag kumay odhan masaajida dad ku xidhnayd masaajidii ku noqo kumay odhan haddii ay qaraabo ay waddanka kuu joogto qaraabadaa raadso kumay odhan waxay u dirtay dhakhtarro iyo caddaan iyo dad gaala ah gabadhii intaa markay u dirtay way samaysay laakiin walaashani waxay u haysatay gabadh dee wax ku dhaartaa wax fahmaysana waxa dhacday walaashii marka intii oo dhan ay samaysay yaa waxay tiri markay dawada qaato dawadu malaha waa iga quwadeeda malaha badnayd ma fahmayo marka qaato waxay tiri adduunyada ma joogay maalin baba ka baxayayba dhulka maalinta dambe inay isniin ahayd iyo inay arbaca ahayd marmar aan kala garan waayi jiray waxaa dhacday waxay tiri waan joojiyey kininkii anigoo joojiyey laakiin weli dhibtii ku jiro waxaan xanuunkii korkayga ku jiro iyo walaashu ila soo hadashay habeenada ka mid ah waa ila sheekaysatay walaashii sidii ilaahay ugu ogaa baan ugu warramay inaan kininkiina joojiyo dhibay keenay aniguna saaka sidaan u kacay aan caruurtu ay iyagu is caawinayeen laakiin waxba anigu aanan u qabanon kor jiifo caruurtuna ay living roomka fadhiyaan halka fadhiga waxay tiri qiyaastii ilaa 7 bilood iyo wax la jira gabadhaasi wanaag iyo si fiican iyo ila hadlaysay laakiin walaashay macaanay markaan dib u eegay waxyaalaha xitaa walaashu wanaaga u haysatay wanaag ma aha because qofka wanaaga kuwa qaya sababtu wuxuu ku diraa meel khayr ku jiro dad islaam ku diraa qaraabadu ku diraa masaajidadu ku diraa qofku yiraahdaa u tag inta kuugu xigta laakiin iyada waxay u dirtay dhakhtarro oo markaa horeba walaashu waxay u haysatay in wanaag loo wado laakiin anu wanaag uma arkayo waxa dhacday gabadhii walaashii waxay ku tiri iyada oo qolka ku jirta maalmaha kamida iyay kool soo dirtay waxa ku tiri walaashii baa u calaaqa cashay makicin dawadii miyaanad qaadan ما قادن أو حاجة توجسي هرد بدن بيجنس هرد دوات اللو باهين تجيب ستيد أو نساتيد حدك الكاميرا ده يسقط قبو سيد ما يرمان كوري لبسان كوري نك اللو بان كوري وحي كوسامري كما يرمان كوري بلاي كو آخر ده كاميرا ده شدو كاميرا دي بشدة تمرك ولاش واللي جيد وحي قلت لي شاكي بحدو يجري لها أو مركز تشد يقول سوا شكي لها لكن ومرك يقول سكي مدة ترويت marka waxay iga dhacday inaan bal mayda iyo waxbay oran jirtay marka waxaan moodayay walaashu tiri inay hubsanayso bal inaan wax iska bedelay waxay tiri aniguna maskaxdayda ma joogin waan shiday haddaan shidina waxay tiri hoos u deg hooskii baan u degay waxay tiri kitchada gal waan galay waxa karsataa bay tiri shaah kininkaagii soo qaado bisinka u qabo adigu qof sidii khayr ku jira ila hadashay inta ila hadashay su'aal u weydiinaysana oo dhankee taagantay dhanka caruurta halkay fadhiyaan bal intus caruurta aan idhaahdo hooyadiin dhageysto ha kicine برسدي بكانت عروت فدية أو عيتوستيسي وفديين يدوس كجرنا سعرور أن والده فديين أو والده شوغن أو وضيرير أو إلا مد لما سهية وحيريه كتشرو وحي يود بسك كي حكم حيلا ساركي مد تأورون يا مالها ديبر كبدش ديبر يروح كان أنت مد لجا سارية لحكم كلا أو كبي أورديس أدو أقل دي هوي كستو واحد شيء هدينا قلقاتين سيزوي كان الهاوي كبر با أوغرون كبر دا أوغرون waxa xitaa ku qabsan ma gabadhu ma dirta wiilashan in dirtidu in halka waxa ka tusaysaa Soomaalidu inaanay wiilasha diran ay gabdhaha ay abis gareeyaan ay dibaan waa dambi kale inka gabadha weyn dirqi dibta ugu weyn gabadha weyn bay ka haysatay sababtoo waxa laga dhigay in dibta badan iyada ay ku haysay waxyaalihii laga duubay sababteeda oo wiilasha in la diro weeyaan war Soomaalidu waxa san ku nacay in gabdhuhum bay diraan in iidib habaryar hawsha ma ugu badan tahay ha ya caruurta maanta oo dhan hay ana hay gabadha yaray wareysatay iska daldalantay sida Ilaahay ku oga sheegtay waa caruur la duubaysa waxa tiri nacam inantu markay ka hadlayso oo waxa iga daran bay tiri kamarada aad arkaysiin ana gacanta ku haya la naga duubaya dibta loo keenay doonta ma la dareemay
fridge ka fur bal maxaa idinku jira maxaad cunto karsateen oo mareerka intaasoo qof aad tihiin ee carruurta ay rib idinla joogaan yaryari yaan waxani oolin maxaad cunteen lacagta sidaa tidhaahdaa xataa ninkii bay ka warantay oo hagbadihii uu idinka qaaday baa weli idinku socdaa oo lacagtama barh baa lagugu lahaa xataa halkaa waxay ka cadaysay lacagtii dowladda ugu talagashay inay carruur siiso inay gabadhaasi inta ururisa ayna siisay sidaa aan idinla hadlayo eed ii dhegaysanaysiin oo weliba life iyo picture ii dheer yahay yaan u horfadhiyo ilahaygooda sida aad soo daawateen okay Soomaaliya waad maqlayseen Soomaaliya dhagihiina aad ku maqlayseen يعني dhagihiina aad ku maqlayseen okay dhibaatada ay gabadhaani ummadda ku hayso ee loogu sacabtumayo ee weliba ay ku sii faanasay leedahay maxaa la iska qaadayaa hawshu waa socotaa war gabadhan social worker islaantan Hana Abukar ma aha social worker social worker ma dowladna uma shaqo she is homeless adarays kuma laha wadanka ay degan tahay Sweden wax adarays haba yaraata ku leedahay ma jirto yaa u xil saartay aynu isweydiino su'aasha aynu isweydiino waxa weeyaan Soomaaliya yaa u xil saartay yaa hawshaan yaa u xil saartay number 1 number 2 waxaadan adigu yeesheen war aawo damiirkeeda dadnimadii war fiiri okay dadka taageeraya ee u sacabtumaya maysan yeeleen gabdhaha taageeraya Hana walaalkood la dhashay hadday arrintaan kala ku sameyn lahayd maysan yeeleen laakiin wiil kale oo Soomaaliyeed oo gabdha la dhashay inay dulmiso oo ay fadeexadiisa qoyskiisa meesha keento way ku taageerayaan Soomaa dameerkan holan fadhiya wasakha ee ibn al-Xaaraanka ah daahir calasow wallahi oo billahi oo tallahi Soomaaliyeed والله وبالله وتالله داهر على سوى ابن الزنا إنه سن هبر قدر أحين عذير ملها ولا الملها عد وليها ما جبته على سوى هبر قدر لما بحجرين because قفك ابن الحاران كأه وحيالها وطاهر على سوى الصنايو باقي هوري الدكة كلهم بعد سنجر هذا علماء دي إيه الدين تيمو فرق الشرع سوق waxaan soo qabanayaa Naciimo Ducaale السلام عليكم وعليكم السلام codkaaga kor u qaad waa lagu maqlayaa اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ست عمليه مقلا هذا waa lagu maqlayaa ما ان شاء الله عبد الحكيم waxaan rabaa inaan dadka fahansiiyo runtii qofkii waxaan fahmi karaa waxa waa inaad ka fiirsatid ma aha laakiin investigation markaa ku samaysid oo aad codka kor u qaad haye ست عمليه مقلا ha oo aad akhrisatid oo ma aragtay gabadhan waxay meesha ku hayso runtii waxa waay Soomaaliya meel kale ku jeedaan Soomaaliya meel kale ku joogta qabiil adu wax taraayo dadka qabiilka maskaxda ka galay ee ma aragtay qabiilka saramka la dhaha caabuda gabadhan hadda afarta ciyaal haysata ee Canada joogta ay waxa soo dhibaato u geysatay markay iswareysteen way ku soo dhaceen dad ilmaadeer ay noqdeen qofay u aabayeesho qoftaan malahan ma faat mana kala jeclo maanta hadda ka aamustaan maanta gabadhaas waa biri adiga waa iyada oo joogta Ingiriiska ayay waxay ka qaraabanaysaa oo ilmaha ka ururinaysaa Sweden sidee uga ururinaysaa Canada systemka ay gabadhaas isticmaalayso horta wax shaqo ah oo ay hayso ma jirto qofkuna social worker iyo dawladda ku shaqeeya waxaan rabaa inaan walaalayaal u fahansiiyo kuma faani karo kumana hanjabi karo meesha Afrika lama joogo oo ma arkin oo dawladda gacanta ku leeyahay iyo hebel adeerkay iyo ma ka shaqeyso meesha ninka maanta booliiska ah kuma ma dhihi karo booliis oo nin waxa looga shaqada looga faayiray ee Norwich ah isagoo duubay cod aanan u sheegin qofka uu codka ka duubayo waa inaad marka hore u sheegtid hey waa ku record gareynaya hebelow waa inaad marka hore tiraahdo number 1 waxa waa inaad xuquuqdiina afaantaan gabadha systemka ay ku shaqeyso waxay tahay markay ku leedahay meel walba dad ay joogo meel kasta waxa u joogto inta nolosha ka dhacday oo dilaaliina oo ay la shaqeysato ma fahantay
ilaaleeyaa videogaas markay soo dirtay ay kasoo dirtay muxuu ahaa London Ingiriiska ay kasoo dirtay waxay u soo dirtay dilaaliinteedii oo gabadha magaalada la degan iyada ma soo wici karto kuwa ilmaha qaata dilaaliintii magaalada la deganaa ayay u soo dirtay markaas kuwaasoo gudbiyey ma fahantay gabadhan waa cadow dumarka iyo ciyaalka iyo faamiliyada qoysaska Soomaaliyeed aabayaashana waxay tiraahdaa ilmahooday kufsadaan hooyooyinkana waxay tiraahdaa ciyaalkaasi ka jidataa marka gabadhan waxaa waaye waa cadow iska ilaaliya markay ku tiraan kale way soo gashay waxay tiri naagta isaaqee ee habar jecley ee cimraaney ee Norway joogtay baaq bay diraysa shalay naagtaasi gurigaaga waxa ka socda waan ogahay muujeeda dilaaliin ayaa waxay u soo dilaaleen gabar halkaas joogto London ay joogtaa YouTube-na waa ka mamnuuc harassment iyo blackmail iyo extortion wax la dhahay wadaa every video-na waa la qabanayaa waana la turjumayaa Soomaalina way kaceen gabadhan cid ay u shaqaysa ma lahan cid soo dirsatay ma lahan waxayna ku dhaqmayso wax loo dulqaadan karo ma ahan ma fahanteen indhaha ka qabsanina waxa waay maanta hadaa ka ilmaamusid bari aday ku soo socota laakiin alxamdulillah horta reer Sweden oo dhan waa kaceen reer Ingiriis oo dhan waa kaceen hadda meel kasta sawirkeeda taa loo wareejinayaa waxaa ku socoto dacwad waxaa ku socoto maaragtay programya ku socdo gabadhan meesha ku aragtaan ka carara hadda waa idin sheegaya ka carara meesha ku aragtaan comment-ka dadka ka soo raacda waa u jeeda 7 bilood ee gabadhan qof wanaagsan iskaga dhigaysay gabadhan waa cadow bal hadda fiiri gabar 4 ciyaal nin uga cararay oo dhibaataysan ayay sii dhibaateynaysaa ma fahanteen gabadhan marka systemkaas markay ku hayso cases baan hayaa dad baa meel ku hayaa waa homeless qadra faarax gabar la dhahay dulsaar ku tahay qolka degan tahay waxaasay dadkii maafiyada la shaqeynay dilaaliintii ayaa u soo shaqwaana dad nolosha ka dhacay absolutely waa dad nolosha ka dhacay marka aimkaas ay leedahay gabadhan iska ilaaliya cid ay caawiso ma leh cid ay waxsiiso ma leh shilimaanta yaryar ay ka ururtay iyada jeeb ku shubato iyo afarteeda dumar ay la shaqeyso iyo rag iyo dumar waxay dadka intimidation bay ku samaysaa waxay ku samaysaa bahdilaad YouTube-na waa ka mamnuuc every video ay dad ku haraas garayso ay ku hanjabto waa la dejinayaa waana la turjumayaa because waa mamnuuc YouTube-ka waxa waa dadka dhan u ka dhaxeeya soo gal laakiin qofna kuma haraas garayn kartid qofna extortion iyo blackmail uma samayn kartid marka insha Allah intaasaan idin sheegaya okay thank you so much wallahi in aysan u shaqaynin hay'ad dawliya iyo maxalliya uqsum billahi alazim ilaahi abuuran ku dhaartay ballan waxaan idin ka qaadayaa in aan social media ka baxo cadayn hadii la keeno waa tayna calad igu dhacda inaysan hay'ad ay u shaqaysaa haba yaraatay jirin dadka masaakiinta waliba dumarka masaakiinta ee Yurub guryaha ku xiran hadda islaantii shimbiraha oo meeshan ku jirto iska xanuunsan waxay ku leedahay hay'ad u shaqaysaa isnaad uma shaqayso uqsum waa dadka noocaas dadka aaminsan oo kale uma shaqayso homeless weeyaan wadanka ay ku leedahay baasaboorka ma degana Ingiriiska gabadh xanuunsan oo baraash qabta oo ilmaheedu 16 sano jira ayaa khatra ila soo hadlay adreeska gurigooda isiiyeen abti naga cayd bay dhaheen hooyaday abustay marka dadka Soomaaliyeed habartan homeless-ka hay'ad dawliya ama maxalliya ay u shaqaysaa haba yaraatee ma jirto dhibaatada ay ku hayso ummadana waa la soo afjaraya daahir dameer oo ibn zina oo aan zina ku dhalan zina ku dhashay ibn al-Haran hadduu damiir leeyahay uu damiirkiisu nool yahay muusan aamineen aabba Soomaaliyeed baa gabadhiisii u kacsaday isagoo fuulaya hooyada soo gashay albaabka u xidhay daahir oo hadaa adigu taada ku samayn lahay oo gabadha kula jirta albaabka u soo xidhay aabba Soomaaliyeed ma sameeyo doofaar ibn al-Haran bata habar kasta oo Soomaaliyeed oo YouTube ku jirta daahir dameer lacag buu ka qaataa aamina muuse weheliye dadkeedu waa ila soo hadleen waxay dhahan way waalan tahay markay Yuusuf Garaad iyo nolosheeda ka sheekaysay ay Yuusuf Garaad nabsatay ay kantiri inay waalada aan ogaan Cabdixakiin haday waalan tahay dhakhtar geysta laakiin wallahi oo billahi oo tallaahi waxa ay siisay haana waxa ay siisay lacag daahiro gabdhaha kale la sheegay inaa video ka sida aad soo adeegsatay iyagana bartaan keenaya bartaan
haddaad ina libax facebook lacag baad ka samaysaa weerar baan akoonkaaga ku qaadaya gadareeri diyaar garow dhaqaalaha ugu badan baan ku bixinaya haana abukare ballan waxa igu ah in youtube-kaaga aan shadham ka dhigo ilaahumay 20,000 ikaga baxdo waa haystaa waana samayn karaa daahir dameer ha iga kaa celiyo daahir dameerow ibna zino aan xalaal ku dhalan oo garaca ayaa tahay carab daahir yaa dhalay barnaamijkii ahaabaan hadda bilaabaya carkeen aabbihii ku dhalay iyo adeerka wir xitaa aabbaha in adeerkii labaadkeen soomaaliya haana abukar dadka ku taageeraya xumaanta ay leedahay wax laga qaban kara ma jirto shaqadu way socotaa war yaa u xir saartay yaa u dhibtay daalimad ilaahay ka go'day weeye dadka ugu socobtumayaana waa daalimiin barnaamijku waa ka baxayaa waqtigu waa igu soo gabagabaysmay insha allah bidnillahi kariim hawsheenaas halkaas inoo bilaabanaysaa daahir dameer iyo anigana soomaali weyne isku kaaya daawada qol yuruba ayuu ka soo qayliyaa maalmo bayira hala dagaalamayo oo shalay wuxuu caynayay ra'iisul wasaarihii la doortay ee habargidir khayrihii uu caayayay ayuu maanta ammaanay oo shirmaad ka soo qaatay hawiyuusan dan u haynin soomaali buuna dan u haynin hawiye muxuu dan u hayaa maba ahe hawiye muxuu dan u hayaa ma ahe war ninkan qolka madow ku jira war ninkanoo bannaan maraya ma aragtan soomaaliya halkaas afka doqoshkaa soo dhigay isagoo bannaan maraya ma aragteen ninkan qolka madow ku jira wuxuu iskaga ka dhigaya ina libaaxsan ka taabto he is nothing wax uu yahay ma jirto anyway raaliga ahaaba barnaamijka leyd baan maanta soo galay barnaamijka inaan dheereeyaan rabe waqtigii baa igu ciriiriya saagoo dhan baan iska dabaaldegayay arrintii kale idiin sheegana waa ka hadli doonaa waxaan ku idhi daahir cali sow farda la isku haya baa la yidhi maxaa la isugu faani dameer baa tahay aan damiir lahayn haddaad adigu gabadhaada wasi lahayd oo aad u kacsan lahayd aad dhashay aabbe soomaali uma kacsan bikaas adigu ibnalxaaraan baa tahay wixii adig kaa suuroobayaad taas kale ku taageerta aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa meel kastaa joogtaan shacabka soomaaliyeed waa walaalkeen cabdixakiin cusmaan nuur xerta shiikha magacayga kale cabdixakiin cusmaan nuur ku soo darsada waa idiin soo sheer garaynayaa halkaa igala socda aad baan idiin salaam